السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة قيمة بدن وسلامتين ملكستو دون دافيد كجوكتان جماعة وناكسن صاحبة قيمة بدن قصو دوادة برنامج كينا أخبارات كافلام تركو قدام بي انت نقودو قلين برنامج كن فضلنا ديتا مركو كوغوريسا صوبا قونيسا جانال كينا وحن كاحو سنة انا سبسكرايب نوصارتو سدو كلايلو انا مقال كان لاقي نوصارتو انكو بلاونا قضب كينا كواد اصحاب قيمة بدن اوفشال شقادة فيلم كوين لغو مقعا وقدار توم واي بلاوتي صاحبة قيمة بدن فيلم كان قدار قيبتي سكواد لغو مقعا وقدار برامج حتى waxa la daawaday 20 sano ka hor sidoo kale wuxuu noqday blockbuster taariikhi ayuu noqday wuxuuna kamid yahay aflaam mid kamid aflaamada ugu waaweyn abid ay Bollywood ka sameeyaan markaan fiirno gadaar qaybtiisa ku daawadash qiimaha badan waxa hogaamiyaal ka ahayeen meegasaarka lagu magacaabo sanad sidoo kale waxa atirsho kuwad ka atirshada lagu magacaabo Amisha Patel sida daraadda saaxiibada qiimaha badan filimkan qaybtiisa labaad in muddo ayaa la sugay sida daraadda shaqada filimkan gadaar 2 waa official saaxiibada qiimaha badan shalay oo khamiis oo ku beegan 2 December ay shaqadiisa bilaawatay sida hadda شاعي كقاعد قوليها اسكال فيلم كان صاحبة قيمها بدن فيلم كان قدار قيبتي سكواد وعذر لحل أيو لقى سيدا درادة وحال رجندنا قيبتان لباتين أيضا وعذر لحل لقى دونت مركان فيرنا فيلم كان واحد دايركتور كان نك لقوا مقعاو أنا الشرما سيدا كل واحد مال قلني شركة أود بدن لقوا مقعاو زي استوديو وحال رجندنا صاحبة قيمها بدن فيلم كان قدار تو إن الضامن دون سنة قدام بلبض كل لاتين لبض وحين وبدن تان حاجة بلاها سامر إن الضامن دون سيدا درادة أوفشال صاحبة قيمها بدن ملك قرطة فيلم كان قدار تو shaqadiisa hadda way bilaawatay sida hadda shaaci ka qaadeen qoliyaha iskale filimkan bal markaan saaxiibada qiimaha badan soo qaadan qodob oo 24 saacan ka soo gudbin taagnaa saaxiibada qiimaha badan Salmaan Qaan walaashiisa gabar lagu magac Arbita Qaan ay afka furateen waxaan ognahay saaxiibada qiimaha badan weega food nagu soo haay gabar lagu magacaabo Katrina Kaif sidoo kale Fiki Guusho aqal galkooda ay dhicdo sidoo kale aroos oo xalfad qaas ay dhigan inta badan saaxiibada qiimaha badan dadka ayada gabadhan iyo ninka lagu magacaabo Fiki Guusho u dhow ay ku casuumi doonaan xalfadooda sida daraadeed asxaabta qiimaha badan gabar lagu magacaabo Arbita Qaan ayaa afka furatay sidoo kale waxay tiri ilaa hadda aniga social media baan ka maqlaynaa arooska Katrina Kaif sida daraadeed waxay leedahay waxay noqon doontaa godad ay naga gali doonto Katrina Kaif haday sidaan aroos ku dhigato maxaa yeelay saaxiibada qiimaha badan Katrina Kaif waxay aad ugu dhowdahay qoyska Salmaan Qaan sidoo kale gabadhan lagu magacaabo Arbita iyo gabadhan kale Katrina Kaif waa laba qof oo inta badan saaxiib ah waxbaan kala qarsan sida daraadeed gabadh lagu magacaabo Arbita Qaan ay afka jabsatay sidoo kale social media soo gashay waxayna tiri waxay noqon doontaa Katrina Kaif haday aroos dhigato waxay noqon doontaa inay godob weyn ka gali doonto qoyskeena maadaama anaga aan nahay dadka ayado aad ugu dhawaaday markaas invitation ama casuumad inoo soo diri way saasay leedahay sida daraadeed ilaa hadda Katrina Kaif arintaas maysan ka hadlin saaxiibada qiimaha badan markaan fiirno Katrina Kaif Fiki Guusho arooskooda ama xalfadooda waxay ku casuunteen dad qaas ah sidoo kale martida ay ku casuunteen waxa kamid ah filim sameeyaha lagu magacaabo Karan Johar sidoo kale waxa ku jirto Alia Bhatt sidoo kale waxa ku jirto gabar lagu magacaabo Anushka Sharma sidoo kale waxa ku jira wiilka cricket kale lagu magacaabo Virat Kohli sida daraadeed saaxiibada qiimaha badan ilaa hadda Katrina Kaif arinta sameeysan ka hadlin laakiin gabar lagu magacaabo Arbita Qaan afkay furatay maadaama inta badan Katrina qoyska Salmaan Qaan ay aad ugu dhaw sida daraadeed waxa la leeyahay absanaanta Katrina Kaif kama bixi doonta ilaa hadda jawaab lagama hayo saaxiibada qiimaha badan bal markaan saaxiibada qiimaha badan aadna dhankaas box office-ka saaxiibada qiimaha badan maanta Jimcaha waxa tiyaatar la saaray filim lagu magacaabo Tadab sidoo kale filimkan waxa lagu soo canbixinayaa wiilka lagu magacaabo Ahan Shati waxa dhalay rugcadaaga Bollywood qof kale ma ahan Sonal Shati ayaa buu ah sida daraadeed saaxiibada qiimaha badan filimkan maanta si fiican ayuu ku furmay markaan fiirna filimkan Tadab saaxiibada qiimaha badan maanta wuxuu ku furmay inta u dhaxaysan 20 ilaa 25 boqolkiiba shabakada box office intii waxay leedahay filimkan wuxuu ka bilaasho wanaagsan yahay aflaamtii la saar tiyaatarada isbuuci horaan kusoo gudubnay sida filimka lagu magacaabo Anthem sidoo kale filimka Satamifa Joyta 2 ayuu ka bilaasho wanaagsan maadaama labadaas film ay ku furmeen inta u dhaxaysan 10 ilaa 15 boqolkiiba taasoo ka dhigan filimkan Tadab inuu aad ugu wanaagsan yahay maadaama maanta uu ku furmay inta u dhaxaysan 20 ilaa 25 boqolkiiba ogaada saaxiibada qiimaha badan filimkan Tadab waxa laga soo min guuri filimka lagu magacaabo RX 100 sidoo kale filimkaas waxa ku soo caan baxay wiilka lagu magacaabo Kartagiya sanadkii 2018 wuxuu noqday filimkaas blockbuster sida daraadeed waxa la rajayn doonaa Ahan Shati inuu filimkan wacd la falid doono maadaama filimkan ban India laga dhigay filimkan Tadab daawadash qiimaha badan waxa producer ka ninka lagu magacaabo Sajid Nadwala sidoo kale Sajid ayaa dhabarka u riday soo caan bixinta wiilkan lagu magacaabo Ahan Shati inta badan ogaada ninka lagu magacaabo Sajid dadku soo garab qabta aad ay u kacan maadaama oo 7 sano ka hor soo caan bixi wiilka lagu magacaabo Tagar Sharif sida daraadeed waxa la leeyahay Ahan Shati waxa soo caan bixinaa inta badan u saaxiiba dadku soo gacan qabta hore ka bulaan sida daraadeed saaxiibada qiimaha badan waxaan mustaqbal ifaa u diyaar
u rajayn doonaa wiilkan lagu magacaabo Ahlan Shati maadaama inta badan qoyskan Sunal Shati culays badan saaraya maadaama ogaada saaxiibada qiimaha badan 2015 ninka lagu magacaabo Sunal Shati gabadhiisa ayaa soo can baxday sidoo kale fadhiida ay ka noqotay maadaama inta badan ay soo cumaysa sida daraaddeed waxa la leeyahay magaca Sunal Shati markan waxa hore u dhaqaajin doona wiilkan lagu magacaabo Ahlan Shati sida daraaddeed filimkan hadda wuxuu la imaado barnaamijyadeena dambe ay ku ogaan doontaan bal markan saaxiibada qiimaha badan waxaan soo qaadan doonaa aflaamta tiyaatarada saaran iyo ganacsiga ay sameynayaan ogaada saaxiibada qiimaha badan filimka lagu magacaabo Antin wuxuu dhameystay hal toddobaad uu dhameystay sida daradeeda waxaan fiirin doonaa filimkan iyo sidoo ku formayo sidoo waxaan fiirin doonaa saaxiibada qiimaha badan filimkan Antin wiigiisa kuwaad lacag uu soo xariim markaan fiirna filimkan saaxiibada qiimaha badan jamciga aan ka soo gudubnay ayaa tiyaatar la saar wuxuu kan lacag gaarayso 4.25 karoor sabtidii wuxuu keenay 5 karoor bari uu kan axadda wuxuu keenay 7.25 karoor isniintii wuxuu keenay 3 karoor talaadada wuxuu keenay 2.25 karoor arbacadii wuxuu kan lacag gaarayso 2.25 karoor khamiistii wuxuu keenay 2 karoor wadartu guud filimkan mara la 7.9 karoor sidoo kale daawadaasha qiimaha maanta oo jimcaha filimkan waxa uu bilowday week 2 giisa ayuu gadagalay sida daraaddeed waxa la rajayn doonaa filimkan inuu noqon doono hid maadaama uu hadda taagan yahay average ayuu noqday sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan ninka lagu magacaabo Salman Khan wiilka seedigiisa Ayu Sharma garabka uu siiyay uu ku meel maray sida daraaddeed waxa la rajayn doonaa mustaqbalka soo socdo Ayu Sharma inuu mashaariic kala gedisan la imaan doono laakiin ogaal saaxiibada qiimaha badan waxa dhiiqa dhax fadhiya filimka weenaysa Tamifa Joyta to sida daraaddeed filimkaas xitaa uu barbar maadaama xitaa inta badan shabakada box office India aysan gabi ahaanba ay filimkaas ka hadleen bal markaana saaxiibada qiimaha badan aadna dhankaasi koonfur Hindiya asxaabta qiimaha badan qamiistan ka soo gudubna waxa tiyaatarada gudaha Hindiya la saaray filimka weyn lagu magacaabo Qanda filimkan waxa laga leeyahay dhankaasi iyo Tollywood xaruntooda ay tahay Hyderabad saaxiibada qiimaha badan filimkan Qanda waxa hogaamiye ninka lagu magacaabo Ruwacdaagana Namuri Balakrishna sidoo kale filimkan ninkan wuxuu ku jiri doonaa laba door oo kala gedisan sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan Namuri Balakrishna wuxuu adeer u yahay jalaag lagu magacaabo Junior NTR sida daraaddeed waxaan fiirin doonaa filimkan Qanda iyo sidoo ku guuleysan karan saaxiibada qiimaha badan filimkan qolyaha jalaag qayb waxay ku iibsadeen lacag gaarayso 53 karoor ayaa lagu iibsaday filimkan soo hid dhameystir u noqdo waxa laga rabaa inuu soo xiriir lacag gaarayso 54 karoor sida daraaddeed waxaan fiirin doonaa filimkan dheewankiisa ganacsi ugu sameeyay ayaa la soo daawacay filimkan saaxiibada qiimaha badan gudaha Hindiya waa canshuurta kor wuxuu soo xiriir lacag gaarayso 23 karoor qolyaha jiladaha qayb filimkan waxay ka heleen macaash gaaraya 15.39 karoor markaan fiirno waxa loo yaqaan World World Gross filimkan dibadda lacagiisa soo xiriir marka la isku daro wuxuu soo xiriir lacag gaarayso 29.5 karoor waa canshuurta kadib wuxuu keen lacag gaarayso 18.24 karoor sida daraaddeed filimkan daawadaasha qiimaha badan si uu guuleysto waxa laga rabaa inuu soo xariir lacag gaarayso 54 karoor darajadaasna waxay kaga dhimantaa kaliya inuu soo xareeyo 35.26 karoor maadaama hadda qolyaha jiladaha qayb filimkan ka helay macaash gaaraan 18.24 karoor ay macaash keen sida daraaddeed waxa la rajayn doonaa filimkan saddexdiis maalmood ugu horeyso inuu si fiican isku celiyo maadaama saaxiibada qiimaha badan atooraha awoodiis inta badan ku xidhaaman tahay saddexda maalmood filimka soo ku gadma kadibna filimka sheekadiisa hadii wanaagsan tahay tiyaatarada baaqiyo ku ahaan doona inta badan daawadaashan way daawan karaan laakiin awoodda jalaaga kaliya wuxuu ku xiran tahay saddexda maalmood ugu horeyso iyo filimka ganacsiga uu sameeyay daraadeeda Balakrishna waxa la leeyahay markaan filimkiisa Qanda dardartu ku bilowdo waxa la rajayn doonaa filimkan inuu ka talaabi doono 54 karoor dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan filimka Zorian Fanshi oo dhameystay wiigiisa afraad ayaa wacdar لحد لديها فيلم كان داوداش قيمها بدن ما أنت daawadayaasha qiimaha badan filimkan Zorian Fanshi ogaada waxa lagu soo fasax OTT waxa kale laga daawana dhankaas Netflix-kan haddana wuxuu saareen tiyaatarada waxa la rajayn doona goordhow inuu tiyaatarada ka degi doono sida daraadda filimkan wiigiisa afraad wuxuu soo xiriir lacag gaarayso 6.25 karoor si adag isku celinaya waxaan fiirin doonaa filimkan afarta wiigo tiyaatarada saarayeen lacag uu soo xiriir wiigiisa kuwaad filimkan Zorian Fanshi wuxuu keen lacag gaarayso 120.36 karoor wiigiisa labaad wuxuu keen 45.60 karoor wiigiisa saddexaad wuxuu keen lacag gaarayso 18 karoor wiigiisii afraad wuxuu keen lacag gaaraysa 6.30 karoor wadarta guud filimkan tiyaatar uu saaray wuxuu soo xiray lacag gaarayso 191 karoor sida daraaddeed cumraantiis waxa loo badanayaa inuu ku darsan karo kaliya 4 karoor ilaa 190 karoor uu gaari doono sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan Akshay Kumar xitaa filimkiis ayadoo aflaamo kala gedisan oo tiyaatar la soo saaray xitaa uu hokan laaya sida daraaddeed filimkan Zorian Fanshi darajahan hadda wuxuu taagan yahay super hit ayuu taagan yahay laakiin saaxiibada qiimaha badan ka xunna filimkii kale lagu magacaabo Tamifa Joyta to ahaanba filimkaas waa burburay xitaa shabakada box office India xitaa filimkaas kama hadlayso ugu dambeyn saaxiibada qiimaha badan soo qaadana Today in History maanta oo kala aflaamta la daawaday
maanta oo kale waxaa tiyaatarada ku hardameen ninka lagu magacaabo Jay Devgan oo wata film Takshak sidoo kale Tom Jack Report asna wuxuu wata film lagu magacaabo Saytullah waxaan fiirin doonaa labadan film box office-ka natiijaan waxay ka noqdeen bal marka hore saaxiibada qiimaha badan waxaan ku bilaabi doonaa filmka hogaamiye ka ah Tom Jack Report waa filmka lagu magacaabo Saytullah filmka markaan fiirno waxa hogaamiyaal ka ah Tom Jack Report Suresh Oberoi sidoo kale Gulshan Garoofal markaan fiirno filmkan waxaa la daawaday 3 December 1999 filmkan waxaa la saaray tiyaatar gaar ah 60 shilin ayaa laga daawaday waxa lagu qarash garay filmka lacag gaarayso 1.5 karoor ayaa filmkan lagu qarash garay cumraantiisna filmkan wuxuu soo xiray lacag gaarayso 94 lag ayuu soo xiray sida daraadeed filmkan lagu magacaabo Saytullah natiijaan wuxuu noqday flop ayuu noqday film gool dareysa ayuu noqday daraadeed Tom Jack Report filmkiisa wuxuu noqday flop ayuu noqday bal markaan soo qaadana filmka kale tiyaatarada ku hardameen oo Jay Devgan hogaamiye ka ah waa film lagu magacaabo Takshak asna filmkan waxaa la daawaday 3 December 1999 markaan fiirno filmkan waxa hogaamiyaal ka ah Jay Devgan Tabu Amrish Buri markaan fiirno filmkan waxa la saaray tiyaatar gaaray 185 shilin ayaa laga daawaday filmkii Tom uu hogaamiye ka ah filmkan Jay uu hogaamiye ka yahay ayaa ka tiyaatar badan sida daraadeed filmkan waxa lagu qarash garay miisaan gaarayso 6 karoor bar ayaa lagu qarash garay cumraantiisna filmkan wuxuu soo xiray lacag gaarayso 3.64 karoor ayuu soo xiray sida daraadeed filmkan natiijahan wuxuu noqday disaster ayuu noqday film burbur oo khasaare lixad leh laga kulmay ayuu noqday markaan fiirin filmkan Takshak waxa tigid u goosto shaleemada ka daawad gaaraya 2,743 kun qof ayaa tigid u goosto shaleemada ka daawatay sida daraadeed labada film oo maanta oo kala daawaday natiijahan midna flop ayuu noqday midna disaster ayuu noqday waxaa halkaas inooga dhan saaxiibada qiimaha barnaamijkeena akhbaaraadka aflaamta wararka ugu dambeeyay fadlan qodobada barnaamijkan ku soo qaadana qodobka ku soo jeetin aragtidaada comment inoogu reeb hadaa kamenta saaxiibada hore noola jooga waxaan kaa codsanaa inaa muuqaalkan share dhaado si saaxiib wanaagsan adigoo kale channelka ugu soo biiraan sidoo kale hadaa kamid tahay hadaa channelkan ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar saaxiibta qiimaha badan ee ilowin muuqaalka in la giro la saaro intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah saaxiibada qiimaha ma ku kulmeyno sidaas waa maana Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh